بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد waxaa ogtihiin maanta dalkeena in abaaro xoog leh ay ka jiraan oo abaaro aad iyo aad u naafeeyey dhaqaalihii dalka ayaad ogtihiin oo sima runtii gobolada dhan ka wada dhacday. abaarahaas kabacdi waxaa kaloo inoo weheliya dhaqaalahan adduunka ee isaguna kor sii socda sarif bararka ee ka jira caalamka oo dhan ayaa isaguna saameyn leh oo taa innaga inoogu wacan ay tahay xoolaheennii oo la joojiyey. waxyaalaha badan oo aynu ka keensanayna dibadda oo dollar badan u baahan, sidaa darteed dadaal fara badan ayay ka galeen xukuumadda oo hogaaminaya maxamed axmed maxamed silaanyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisa iyo bangiguba. dhammaan muddooyinkii u dambeeyey waxaan ku jirnay shirar aan la lahayn shirkadaha waaweyn ee dalka sida dahabshiil, talisom iyo wixii la mid ah, iyo ganacsatada kale iyagana fahantooda. sidaa darteed waxaan u sameynaynay dadaalkaas gurmad inaynu laga yareeyo oo la khafiifiyo sarif bararka runtii jira ah in lacagteena aynu kor u qaadno. waana laga dareemayaa suuqa labadii cisho marka u dambeeyey inuu hoos u sii socdo. sidaa darteed waxa ay ku tala jirtaa xukuumadda iyo bankuba in la sii wado oo hoos loo sii wado. waana la iska kaashanayaa. dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa in ay dadka ganacsada in ay dadkooda u naxariistaan oo ay kaga iibiyaan lacagta somaliland qiimaha ay ku sheegaan oo ay ka iibiyaan dadweynuhu. sidaa darteed taas haddii gacmooda jirba wax ku gooyaan oo haddii aynu isla kaashano shicib iyo xukuumad waynu ka baxaynaa dadeen, laakiinse aynu ku dhumaalaysano oo dadka qaarkood ay siyaasad ka bayaan waxba socon maayaan oo waxay noqon kartaa inay wadajirnimada ay weeqanto. sidaa darteed waxaan usoo jeedinayaa bulshada iyo tijaarta iyo cid kasta oo ay khusaysaa in ay ka qayb qaataan sidii sarifka hoos loogu dhigi lahaa, lacagta somalilandna qiimo loogu yeeli lahaa.